Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show. Waa maalinimo Khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha 6aad 2026. waxaan halkan ku faaqidi doonaa qodobada ugu waaweyn ee ugu dambeeyay wararka caalamka. Mareykanka ayaa xalay duqeymo hor leh ka geystay gudaha Iran iyadoo taliska dhexe ciidanka Mareykanka ay shaaciyeen in weerarada xalay ay fuliyeen ay yihiin kuwa si isdifaacida oo daba socda weeraradii xalay ee laga jawaabayay diyaaradii Mareykanka ee ku dhacday toddobaadkan marin biyoodka Hormuz. weli Mareykanka magama uusan u bixin duqeymaha uu habeenkii xalay ee labaad ka geysanaya gudaha Iran, taas oo ka dhigan in weerarada la xiriira cadaadis la saarayo inay Iran si heshiiska u ogolaato markii ay shaqeyn waayeen dhammaan talaabooyinkii hore ee go'doominta dekedaha iyo cunaqabataynta la saarayay. ilaa Mareykanka uu howlgalkan si rasmi ah ugu sheego weerarada uu ka wado Iran, waxa ay la macno tahay inaan la gaarin marxalad dagaal oo joogto ah dibna loogu laabanayo si fudud ee wada hadalka ama albaabka wada xaajoodka weli ma uusan xirmin ay leeyihiin khubarada faaqida dagaalka. dhinaca kale dhacdo muhiima ayaa ka soo korortay garsooraha caanka ee Cumar Cabdulqaadir Cartan. garsooraha kubadda cagta Soomaaliyeed Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo kulanka ugu sareeya kooxaha kubadda cagta ee Yurub ee Super Cup-ka oo u dhaxeeyaan PSG iyo Aston Villa oo 12 bisha Agosto ka dhacaysa magaalada Salzburg ee dalka Austria, taas oo tallaabo sare u qaadaysa garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan. dhinaca kale kadib ficilkii uu qaaday maamulka Trump gudaha Soomaaliya waxaa si midnimo leh loogu muujiyay taageero garsooraha kubadda cagta Cumar Cabdulqaadir Cartan oo ah garsooraha sanadkan ee Afrika isla markaana kamid ah garsoorayaasha loo xushay koobka adduunka. Cartan ayaa maalintii labaad Muqdisho ka helaya taageero iyo garab istaag ballaaran oo ka imaanaysa bulshada Soomaaliyeed iyadoo maanta munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho uu musharaxa xilka madaxweynaha Galmudug Libaan Axmed Xasan ku wareejiyay lacag dhan $50,000 oo lagu dhiirigelinayo garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan. dhinaca kale waxay u muuqataa Hindiya iyo Mareykanka inay ka dhex talatay 3 badmaaxayaal oo u dhashay Hindiya ayaa ku dhintay weerar military oo xalay Mareykanka ay ku qaadeen markab shidaal sida oo ku sugnaa meel u dhow xeebaha Cumaan, iyadoo weerarkan uu dhaliyay inay Hindiya u yeerato diblomaasiyiinteeda Mareykanka u fadhiya New Delhi si ay wax ugu weydiiso weerarka uu Mareykanka ku qaaday markabka.